waalidiin badan ayaa waxayna weydiiyaan waxa ku sababay ilmahoodu inay aragtida fog soo yaraato oo cudurka myopia la dhaho kan ugu badan ee dhaliya aragtida fog inay ilmaha yaraato waxa ku sababay ilmahooda waxyaabo badan oo ku sababay ayaa jira laakiin waxyaalo aan lagu baraarugsanayn oo aan rabno inaan waalidka ku baraarujino waxa ku keenay horta waa number 1 waa familial haddii cunugu waalidkiisu ay qabaan myopia ama cudurka aragtida fog yareeya jaaniska cunuga uu ku qaado way badantaa oo weliba waxaan dhahnaa haddaysan labada waalid qabin waa low risk inuu cunugu qaado aaday u yarta haddii labada familba qabaan jaanisku aad u badan yahay waa high risk haddii hooyadii iyo aabihiiba ay qabaan cudurka myopia ee aragtida fog soo yareeya haddii labadood midkood uu qabane waa medium risk ama dhexdhexaad waaye waxyaabaha kale ee sababa oo aysan dadku Soomaalidu badanaa ku baraarugsaneen waxaa ka mid ah waqtiga loo baahan yahay cunuga inuu banaanka ku qaado